Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan oo meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada casharadii imtixaanaha ahaa ee aynu ku baranaynay luqadda Ingiriiska. Sidii horey aynu idinkugu ballan qaadnay, casharkan waxaan kusoo gudbin doonaa tayniska koowaad ee luqadda Ingiriiska. Ingiriisku waxa uu leeyahay 12 taynis, kuwaas oo loo kala qaybiyo 3 qaybood oo kala ah 4 qaybood oo mustaqbalka ka hadasha, 4 qaybood oo presentiga waxa loo yaqaano ama waqtiga xaadirka ah ee jooga ka hadasha, iyo 4 qaybood oo 4 xabo ah oo ka hadasha waqtiga tagay oo loo yaqaano past. Tayniskeena koowaad waa present continuous oo ka hadla waxa xaadir ah ee haddana socda. Balse marka hore inta aynu u guda gelin saaxiibada qiimiga badan ee casharkan uu soo gaaro, waxaan ka codsanaynaa in ay sii faafiyaan oo ay sii gaarsiiyaan asxaabta kale. Cidii aan ugu soo biirina ay ugu soo biirto oo like, subscribe iyo comment intaba ay ku qabato. Tenses waxaa lagu fasiraa ama lagu sheegaa inay yihiin Soomaaliga dhacdo faleed. Qeexitaanka ay leeyihiin marka luqadda Ingiriiska la aadana waa sidaan highlight ka saaran oo aad arki kartaan. Tense waa a form of a verb, waa hab ficileed that is kaasoo used loo isticmaalo to show in lagu muujiyo when an action marka ficil happened uu dhaco. Halkan koowaad sida aad ka arkaysaan waa tayniska koowaad oo ah present continuous. Continuous waa socda, presentina waa jooga. Qeexitaanka marka tayniskan aynu eegno. Definition waa qeexitaan. Present continuous is used for waxaa loo isticmaalaa to express in lagu muujiyo an action dhacdo in lagu muujiyo which is happening taasoo dhacaysa now hadda or ama at the moment waqtiga of speaking ee la hadlayo. Present continuous waxaa loo isticmaalaa wax markaas la joogo dhacaya ama la sameynayo. Haddii aan ku celino qeexitaanka, present continuous is used for waxaa loo isticmaalaa to express in lagu muujiyo an action ficil which is happening kaasoo dhacaya now hadda or ama at the moment waqtiga of speaking ee la hadlayo. Waa tahay tayniskan waxa uu leeyahay sida taynisyada kale oo kaleba ay leeyihiin. Waxaa loo kala qaybiyaa marka la joogo present continuous 3 qaybood ayaa loo kala qaybiyaa. 3daas waxaa weeye waxaa loo yaqaano pronounska. 7 magacyaal ayaa jirta oo Ingiriisku uu leeyahay. Marka 7dii sidaan ayaa loo kala qaybiyaa. Waxaa kaloo soo raaca singular oo ah kali iyo plural. Marka I kaligeed waxay qaadataa markii present continuous la joogo am. He iyo she iyo it iyo singular wixii kali ah sida waa magacii kaliga ah sida Cali, Axmed, Caasho waxay soo galayaan booskan ay soo galayaan. Marka he, she, it iyo singular waxa ay qaataan intaasna is ay qaataan. Macnaha he haddii aad isticmaashid waan arki doonaa iyadoo faahfaahsan way noo socotaa, waxaa ku xijinaysaa is. Haddii aad she isticmaashid waxaa ku xijinaysaa is. Haddii it aad isticmaashid waxaa ku xijinaysaa is. Haddii magac singular aad isticmaashid sida Cali ama Caasho ama wuxuu doono ha noqdo, magac singular oo kaliya haddii aad isticmaashid waxaa ku xijinaysaa is. Qaybtan kale you iyo we iyo they iyo plural waxay qaataan r. Haddii you aad isticmaashid
waxaa ku xijinaysaa r. haddii we aada isticmaashid oo jumladaada aad ku bilowda ama subjectigaaga uu noqdo waxaa ku xijinaysaa r. they haddii aad isticmaashid r. haddii magac plural aad isticmaashid waxaa ku xijinaysaa r. magac pluralka waxaa noqon kara tusaale ahaan Ali and Asha, 2 boys, are 2 girls. wax adiga hal ka badan haddii aad isticmaashid magac hal ka badan haddii aad isticmaashid oo jumladaada aad ku bilowdid waxaa qaadanaysaa r. waayahay construction ayaa jira marka oo tenniskan uu leeyahay. constructionkaasna waa sidaan subjecti oo ah subjectigu waxuu noqon karaa 9 mid ka mid uu noqon karaa. macnaha wuxuu noqon karaa ama 7 magacyaal mid ka mid ah oo kala ah 7 magacyaal I, he, she, it, you, they, we. 7daas mid ka mid wuxuu noqon karaa. sidoo kale wuxuu noqon karaa magac singular ah. sidoo kale wuxuu noqon karaa magac plural ah. marka subject markaa dhahdid balaas waxaa lagu xijinayaa haddii uu qaybtii ista qaadanaysay uu yahay oo he iyo she iyo it uu yahay iyo singularkii haddii uu yahay subjecti waxaa lagu xijinayaa is. haddii uu a yahana keligeed waayo waxaa lagu xijinayaa am. haddii you ama we ama they ama plural uu noqdo subjectigaagana waxaa lagu xijinayaa r. markaa saas dhahdid balaas waxaa ku daraysaa verb ama ficilkii oo ah aas-aaska ee jumladda. jumlad ficil la-aana inta badan ma jirto. balaas ficilkaas wuxuu asaguna daa'iman wataa markii la joogo present continuous ing. waxaa ugu dambeeya oo lagu darayaa objecti oo ah ficil lagu sameeyey wixii wax lagu sameeyey. tusaale ahaan waa kana halkan fiiri I subjectiga waxaan u qaadana markaan I waxaa lagu daraa oo ay qaadataa am. waxaa lagu darayaa markaas ficilkii oo aanu ka dhignay speak. ficilku waxaan sheegnay mar kasta inuu wato ing lagu darayaa. balaas waxaa lagu darayaa intaas markii la joogo objectigii oo aynu ka dhignay English. I am anigu speaking waxaan ku hadlayaa English. ingiriis aan ku hadlayaa. wixii lagu hadlayay waa ficil sameeyey. waa tahay exampleskiisa aan fiirino marka oo dhammaystiran. speak ayaan ficilkii soo qaadanay. he asagu is speaking waxa uu ku hadlayaa English. ingiriis ku hadlayaa. subjectigan waa he. istu waa ficil caawiye waxa waa he maadaama meesha ay timid waa inay is imaataa. speak waa hadal ing-diyaa lagu daray speak inay noqotay. Englishna waa objectigii. okay jumlada labaad she waa iska ognahay waxaa ka mid ahayd wixii markii she haddii subjectiga uu noqdo waa inaa is meesha keentaa. qaybtii ista qaadanaysay ay ka mid ahayd oo 3 group aan u qaybinay sida aan korba kusoo sheegnay oo groupna ay qaadanayaan is groupna ay qaadanayaan r hal kaligeeda oo I ahna ay am qaadanayso. she is speaking iyadu waxay ku hadlaysaa English. ingiriisi ku hadlaysaa. saddexaad you waa sheegnay mar haddii you meesha imaato waa inaa r isticmaasho. you are speaking waxaa ku hadlaysaa adigu English. ingiriisi ku hadlaysaa. waxaa xusid mudan inaad mar walba ogaatid waxaan laga hadlayaa inay yihiin wax markaas dhacay. waa tahay example-ka labaad oo ficil midkii ka duwan aynu soo qaadanay. speak ayuu ficilkeenu ahaa. hadda waxaan soo qaadanay eat oo ah cunid. we anagu we are qaadataa waa iska ogtaa daa'iman sida aan soo sheegnay markii present continuous la joogo. we anagu are eating waxaan cunaynaa food cuno. ida ahayd ing-diyaa lagu daray markaas noqotay eating. foodna waa objectigii. number 2 day ayaku are qaadataa. day waa iska ogtaa waa kooxdii qaadanaysay art daa'iman markii present continuous la joogo. eating
eat waa ficilkii ing lagu daray, eating waxay cunayaan food cuno. halkaan marka si fiican u fiiri numberka 3 aad ayuu muhiim u yahay. the cat markaa fiirisid the cat maxay qaadanaysaa? waa magac singular ah. magac singular ah xeerku leeyahay waa soo sheegnay, waa in is la siiyo. marka waxaad dhihi kartaa haddaad rabtid the cat mukulaasho or ama id. the cat ama id midkaa rabtaa isticmaali kartaa. marka haddii aad the cat isticmaashidna waa magac singular oo the cat is eating, mukulaasho waxay cunaysaa food cuna ayaa leedahay. haddii id aad isticmaashido pronoun-kii aad qaadatidna oo id waxay u taagan tahay cat ay u taagan tahay waa magac uyaale, waxaa isticmaalaysaa is. it is eating waxay cunaysaa food cuna ayay cunaysaa. waa tahay questionski marka aan fiirino questionski ama su-aasha qaabkee looga dhigaa qaab dhismeeday leedahay oo wax badan aan uga duwaneyn. su-aashu waxa waaye dabeecadda lagu yaqaano markii la joogo tennisyada dhammaantood. hadda present continuous aan joognaahay waxa weeye in dhammaan ficil caawiyaasha ista ama arta ama amta in banaanka lasoo mariyo horta oo lagu bilaabo jumladda, kadib lagu xijiyo subjectigii, kadib lagu xijiyo verbkii, kadib lagu xijiyo intii kale sidii u dhismaysaa ingdii, kadibna objectiga loogu daba mariyo. objectigu markaas ugu dambeeya calaamad su-aal ayaa la saaray maadaama su-aal. marka haddii subjectigaagu wixii uu noqdo ayaa ka xugun qaadanaysaa. subjectigaagu haddii uu I yahay am ayaa ku bilaabaysaa jumladda am I. haddii uu you yahay are you. haddii they uu yahay are they. haddii we uu yahay are we. wixii subjectigaagu uu yahay waxa uu qaato ficil caawiyaha uu qaato waad soo baratee ayaad ku bilaabaysaa jumladda. marka tusaale ahaan aan fiirino hadeertaan they waaye subjectigeenu. marka hore inaad subjectiga ogaatid ayaa ku xukumin kartaa ficil caawiyaha aad ku bilaabayso jumladda. marka they maadaama uu subjectigeenu yahay are aan ku bilaabaynaa. are waxaa lagu darayaa subjectiga oo they ah, waxaa lagu darayaa ficilkii oo speak ah, waxaa lagu darayaa ingii oo markasta oo tenniskan ficiladiisu ay wataan, waxaa lagu darayaa objectiga oo English ah. markaas waxay noqonaysaa are they ayaku speaking ma waxay ku hadlayaan hadda laga wadaahe English Ingiriisi ma ku hadlayaan. tusaalaheedu markaan oo ayadana faahfaahsan aan fiirino. is he speaking ma wuxuu ku hadlayaa cafwan meesha ayaa ka maqan speaking English Ingiriisi ma ku hadlayaa. is she speaking iyadu ma waxay ku hadlaysaa English Ingiriisi. are you adigu speaking ma waxaad ku hadlaysaa English Ingiriisi ma ku hadlaysaa. waa ujeedaa ficil caawiyaashii ayaa banaanka la geeyay maadaama ay su-aal tahay. marka isay qaadataa sidaas ayaa is loogu bilaabay, shiina isay qaadataa sidaas ayaa is loogu bilaabay, yuuna aare qaadataa sidaas ayaa waxaa loogu bilaabay arti. haddii magac plural ah meesha keentidna aara ku bilaabaysaa oo are cali an caasha ayaa dhahaysa. haddaa laba qof ka hadlaysid iyo wax ka badan haddaa ka hadlaysidba aara ku bilaabaysaa. haddii magac singular ah ka hadlaysidna is ayaa ku bilaabaysaa. is Ali speaking English. Ali Ingiriisi ma ku hadlaya. waa mahadsantihiin. casharkeeni intaas ayuu dabcan ku egyahay. qaybta kale ee xigta waan soo gudbin doonaa oo tenniskan ka dhiman oo negativekii iyo waxyaabo kale ah. marka ha iloobin in aad subscribe saarto channelka, sidaas oo kalena like iyo commenti waxay tala iyo tusaale ahna aad noo soo gudbisaan oo aad nala wadaagtaan. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka casharkan iyo casharada kale ee ku jira bartaba. inta aynu isugu soo laaban doono casharkan midkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.